halkani waa Soomaali Voice ee Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway oo aad u taagan sidii ay bulshadeeda uga wacyigelin lahayd arrimahooda muhiimka ah si loo dhiso garaadkooda qofka qoyska iyo qarankaba. haddaba maanta waxaynu halkan kaga doodi doonaa oo aynu ku haynaa barnaamij dadwadaagga ka oo ku saabsan ama ciwaankiisu uu yahay sidee annagoo kala dawd iyo danba ah uga wada shaqayn karnaa danta guud. subxaanahu wa tacaala waxa uu ina abuuray innaga oo kala midab ah, kala muuqaal ah, kala aragti ah, kala fikir ah, kala dana ah, kala dow ah. haddana waa nolosha iyo sunnooyinkeeda iyo noolahaba. horreyso aanan idin weydiinayno waxa ay tahay oo aan doonayno in aad si qayaxan dadka ugu qeexdaan waa maxay danta guud. kusoo dhawaada ana quraanka ayad malaha gundigu noqonayso uu inoogu sheegay وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان oo macnaheedu yahay inaan isku gargaarsano wixii samafalka ah iyo alla ka cabsi ah aanan isku gargaarsan inaan dambiyo iyo xadgudubyo marka dan guud waa wax naga dhaxeeya maxaa dhammaanteenba naga dhaxayn karaya oo dan noo ah oo maaragtay ay tahay inaan ka wada shaqaynaa oo aan ilaashanaa oo aan sii horumarinaa. macnaha misaal waxay noqon kartaa amniga sida la sheegay, waxay noqon kartaa dan kale in waxbarashada carruurta ka caawina waxna taabanaya oo naga wada dhaxeeya oo cid walbo anaga naga mid ah dan ay ugu jirto oo aynu ku qasban yihiin inay ka shaqeeyaan ayaan dan guud dhihi karaa inay tahay. anigu waxaan ku fasiri karaa meesha aan ka bugno inay tahay danta guud oo inaan si sax u garan waxaa naga dhaxeeya oo inaan si sax u garan kii mas-uul looga dhigayo danta guud wuxuu u qaataa inuu asagu shaqadiisi inuu asagu leeyahay kursi waana waa dan guud waay. madaxweynuhu wuxuu qabtaa danta guud oo madaxweyne ka yahay isagu ma leh. wasiirku wuxuu danta guud oo wasiir u yahay. marka haddii laga bilaabo qofka madaxweynaha ah ilaa iyo qofka shakhsiga ah danta guud ay nin walba wakaaladtiisa qaato nina aanu ugu takrifan danta guud inuu asagu leeyahay waxaad moodaa in wax walba noo saxmi lahayn halkaas kusoo gaabin lahayn. guud waa sida sheegteen wax ummad ka dhaxeeya oo dadku wada wadaagaan weeyaan oo maxay ahayd in la wada ilaashadan ay tahay hadday luqad tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday diin tahayba. marka waxaan isleeyahay danta guud haddii xaggan aan joogno caruurteeni noloshoodii iskuulaadka waxaasoo dhan waalid ahaan danta guud annaga noqosaysa waa taas. haddii tii wadankii la yidhaahdaan dee qofkii la doortay waxaa fiican in danta guud ka shaqeeyo oo dadkii maxay ahayd isu keeno oo laga wada qayb qaato wadanka dib u dhiskiisa iyo maxay ahayd dib u heshiisiinta mar walba la sheego oo maxay ahayd madaxweynaha iyo afarta ku hareeraysan dhabarka wax saaranin oo dadkoo dhan ka wada mid noqdaan dhismaha wadanka awood qaybsiga wada jirka anisaasa isla eehay. haddii aan kusoo dhawaado su-aashaasi aadna weydiisay oo dabcan ballaaran oo aan aad loogu soo diyaargaroobin oo gaadma ah koley guud ahaan waa laga warramay ilaahay tataabinayso laakiin aan waxaan u arkaa in danta guud waxa uun dadka ka dhexeeya. laakiin haddaan hal tusaale usoo qaato mitaal hadda waddankan aynu ku noolnahay canshuur baan bixinaa sooma tusaale ahaan canshuurtaas waxay dib ugu noqotaa iskuuladii iyo caafimaadkii iyo wadooyinkii iyo wixii kaabayaashii bini'aadanku u baahnaa oo dhan. marka taasaa laga yaabaa in ay maaragta tusaale nool u noqon karto laakiin waan ku raacsanahay maaragtay raggii ugu horreeyey siday u dhigeen maaragta waa mas-uuliyad ummadeed sidan oran karaa. mas-uuliyadda ummadeedna waxaan ku imayn karnaa in meel haddii dadi ay joogaan ay eegaan horta maxaan ku joogi karna arkaa nabarwana amniga noqon iyo nabad inay timaadana waxaa ka mareeyo in la analyse gareeyo ama isla arko say nabadda tahay inoo tuso si loo arkeen marka dadku marka inta badan waxyaabaha marka la fiiriyo cilmiga psychology-ga la eego wax dadku isu keena waxa weeye qof walba xanuunka u dareema laakiin inuu yacni uu ka baxo uu doonayaa oo u gudbo xaalad uusan xanuun dareemayn. marka waxaan anigu oran karaa danta guud waa in laga shaqeeyo kow barta in la helo aas nabadeed oo dadku ay ku wada noolaan karaan ayaga oo kala jiro kala aragti wadana mabda'a qof walbana uu aqbali karo qofka ka soo horjeedo aragtidiisa iyo mabda'iisa ku dhisan karitalisnimada oo aniga keliya ayaa saxan
cid kasta oo fikirkeyga kasoo horjeedtana waa cadowgeyga koowaad ee uu awowuhu awowlaku ka dhaxlay, aabbuhu awowgu ka hidda raacay, wiilkuna aabbihii kasii hidda raacay, oo nala noqda wax caadiya oo dabiici ah oo nolosheena ka mid ah aan loo bedeli karaa maadaama aan ku sugan nahay dal ku hormaray kala aragti iyo fikir duwanaanshaha heerka aan arkaynana ku gaaray innagana meesha aan aragna la dhigay. jawaabteeda mar hore aan arkay fanaankii weynaa allah u naxariisto abwaanna ahaa heesi jiray cumar dhuule cali ayaa habeen ka mid a isaga iyo xaaskii uu qabay ayaa dood yara ka kululaatay. hadal ayay si uu tiri cumarna si kale u qaatay, fadqalala ka bilowday, gabadhiina way carootay, gurigii bay ka baxday. markay ka tagtay ayuu cumar fariistay. markaa uu isweydiiyey oo yidhi niyo adiga anaa saxan adiga ku dagaalamay horta ma saxan tahay ma runbaa? doodii buu soo dhigay isagoo cadaalad filaya. cumar waxaa u soo baxay inuu isagu qaldan yahay, wuxuuna goostay inuu qaladkiisa qaato, kadibna uu garaabsho ka bixiyo. kamankiisii buu qaatay, wuxuu tegey gabadhii gurigay ku xarootay, gabar kale la joogtay. wuxuu tiri cumarow talalaasaad abuurtay haddana waa noo socotaa. wuxuu yidhi waxaan wataa kii nabada, kamankaa gacanta ku haystaa buu yidhi, talalaasuma socdo. hees ayuu gabadhii u qaaday. marka 2 arrimood ayuu sameeyey cumar oo ah inuu asagu ka radsado, wax isweydiiyo, kadibna garaasho bixiyo. dhaqanka soomaalidana waa mid aad u guya, waana midda hadda su-aasha jawaabta raadinaysa. wixii hagaagsan maruun halaabo haatan iyo dan ila heshii. markaan ummad soomaalida waxaan dhihi lahaa waxaweyaane buugta kala raadine abwaaniinta soomaalida iyo dhaqankooda soomaalida dib ha ugu laabtaanoo mar waliba waxay keelayaan jawaab ku habboon waxa ka maqan. tan keligiis xariifnimada siday dhahaan ciyaalka xaafadda, qofkaas inuu keligiis xariif yahay oo uu isla saxan yahay, wal waxaa laga yaabaa wax dhaqanka salkule inay tahay oo maaragtay khayrka iska celi ama faca iska celi ay salku ku hayso, oo aan dadkaba lasoo barin sidoodaba in ay maaragtay qofka uu dhegeysto, laga ra'yi duwanaado, uu ku ixtiraamo. ya aduu ra'yigaaga dhiibanaya si ixtiraam lagu dhiiban kartaa. marka waxaasna waxay u baahan tahay dee wax iskuulladana laguma bari jirin, doodana laguma qaban jirin, dee dadkeena iskuulladii hataa waqtigii ay macnaha dowladii hore ay jireen. saxan waxay la tahay odayaasha inay maxay iska nastaan parkinga galaan, maxay mas-uuliyadda wareejiyaan, dadka dhalinyarada new generationka loo daayo systemka wadanka iyo haddii maxay tahayba xil iyo waxaasba. sababto odayga iyo maxay way is og yihiin meesha qabiila socod. horta odayga qabiilu mas-uul ka yahay, wixii oo qabiilkaas lagu odaygaasna fuliyaa oo wax danta guud ma fuliyo odayga. marka odayaashu inay iska nastaan aanay talin lahaa, sababto ay waxba meesha kuma hayaan. 32 sano oday unbaana hortaagan, intii ku horeysana malaa way jireen, laakiin wax badan inay qaban bay la tahay. horta qof walba waxaa dhiirigeliya oo dee maaragtay ka dhiga inuu daneeyo, maaragtay inuu ka qayb qaato urur ama uu ka hadla ama uu dhaleeceeyo, waxbaa dhiirigeliya. waxay noqon kartaa dee qofkaasayta inuu maaragtay awood raadis yahay ama lacag raadis yahay ama dee honorable se recognition ama dee in ictiraafo in la tixgeliyo uu maaragtay u baahan yahay oo laga soo qaybgeliyo kulamada. kana waxay la tahay Maslow's hierarchy of motivations waxa la yiraahdaa, ayaa jira theory la yiraahdaa, maaragtay la yiraahdaa qof kasta waxaa dhiirigeliya. markaana waxay la tahay in la isla socodsiiyo waxyaalaha maaragtay la qabanaya waxay muhiim u tahay, oo qof walba in la qancin karo isku day. cid kastaba ma qancin karo, yes, laakiin in war la gaarsiin yiraahdo waxaan ayaa maaragtay aan wadnaa sababtaasana u wadnaa, danbayna ku tahay ana danba ii tahay, aan wada danaysan. marka haddii taas la helin, marka waxay imaanaysa in mar kasta dee maaragtay jabaato la isu dhigo oo maaragtay waxaa la socodsiin waaya. soomaaligu ma wada xuma mana wada fiicna, meelihiisii waqtiyadiisii malaa markuu joogay waxaa la odhan karaa dee dhaqan fiican buu ahaayo, nimanka abwaanada waaweyn waxay ka soo saareen dhinacyo fara badan oo wanaagsan buu lahaa, sababto dhaqan wada wanaagsan ma jiro. intii dee aqoon lagu dari lahaana duruufo nololeed oo adag iyo run ahaantii dadkeena ku dhacay. col iyo abaar inaan ka korno, col iyo abaarna waxaan ka kori karnaa wada hadal, in la iskarabshiyo la isiisiiyo, dadku is aaminaan. taasina waxay u baahan tahay markaaba la gaari karaa khilaafka weliba u dhexeeya dadkeenu ee la isku diidayaa
ma aha kani kalaasiska ahee niman lacag leeyihiyo fuqaro ma aha waa ku horizon ahoo ufuqi ah waa ku dadku ay sidaa u kala duwan yihiinoo kii lacag leydii iyo kii saboolkiiba mararka qaarkood dhinac wada maraya arrimahaas waxay u baahan markaa si fiican in looga fikiro oo si kasii gundheer sidii hore fududeyd in looga fikiray u baahan tahay taasina dee cilmi baa lagu dhisaayo aqoon baa lagu dhisaa kuwa inala midoo fara badan baa jiray oo la hagaajiyey weliba inaga wax badan oo ina mideeyaan leenahay inaan abuurno narrative cusub inteena reer dalkan reer norway reer yurub oo soomaalida narrativekaas oo ah warseen dhallinyaradeena iyo carruurteena oo haya iyaga oo soomaali ah lahayd duni horumartay iyo dal horumaray oo ku horumaray kala aragtid iyo fikir duwanaanshuhu in ay tahay wax loo baahan yahay oo ay ummadda ku horumari karto sideen daab uga faa'iidaysan karnaa oo aan ugu shaqayn karnaa innagan inta ku nool innagoo kala fikir ah kala ururo ah kala siyaasad ah kala dana ah kaantow ah haddana aan uga shaqayn karnaa danta guud ee ummadayna danta guud waxaan wada shaqayn karnaa in lais aqbalo marka ugu horeysa oo maxay ahayd fikirkaagii waxaad adiga aaminsan tahay waa ku yeelkadaa laakiin waa inaan kugu qadariyaa taasaan u wada shaqayn karnaa isleeya anigu bes ma ahan ina anigu fikirkeyga saxanya adiga qaldan tahay taas kama wada shaqayn karno ururada waa laga dhawaajiyey anigu reer bekanaa nahay ururo badanaa meesha joogaan kala soconaa waa wada shaqayn karnaa of course isku danaa nahay oo isku doonaa saaran nahay inaan isdhegaysino oo dhinac wax u wada jeedino danteena iyo danta mustaqbalka caruuraheenay ku xiran tahay marka in laisqadariya ayaa ugu muhiimsan oo laismaqla khaaskana aad bay muhiim u tahay waayo qofka dantiisa khaaska ahaa markuu meel saara oo meel ka soo baxa dhibaatadiisna way ka maaragtay badbaadaysaa itaalaad caruuraad leedahay caruurtaadii haddaadan tarbiyeynin ee bulshada kama badbaadayaan hadhow marka danta guud ay dhaawacaysaa marka qofka horta marka hore waa inuu dantiisii khaaska ahayd wuu samaystaa uu ka soo baxaa waxaa kaloo maaragtay ay danta khaaska maaragtay faa'iido u tahay mithaal qofka hadduu wax barta camal dad badan wax taaran karaa ama waxaa codsiyaa ka caawiya ama warqad ha u akhriya ama waxaa u sharaxa ama waxa bara marka macnaha qofka intiisayba daayacay mid kala dugsanaya somayn haysti marka danta khaaska horta marka hore laga soo baxa markaas kadib danta guud waan ka wada shaqayn karnaa waxaa wada saarannahay doon la dhaho doonta diaspora ama diaspora bot marka waa muhiim in maaragtay sidii monob u sheegtay in lays qadariyo lays dhegeysto lays ixtiraamo siyaabaha ugu muhiimsan ee lagaga shaqayn karo danta guud ama yani laysula jaan qaadi karana sidii bilowga waxaan ku furay macnaha in dooda la furan la galo laysku dhiirigeliyo si ixtiraam iyo maaragtay qadarin ay ku jirto loo wada hadlo mar laysu tanaasulo yani laysoo dhaweeyey laysbarto lays aqoonsado sababtoo haddii aanan ku aqoonsanin adig oo aanan channels kugu samaynin hawshaad qabanaysid oo aanan bogaadinin waxaa laga yaabaa inaad u aragtid adiga laftaada inaan cadow samaysanaysid marka qofka biniaadankana in la bogaadiyo hawshuu ka shaqaynayo looga mahad celiyo waxyaalahaas waxay ka mid yihiin qofkana inay ku dhiirigeliso in uu hawshii sii laba jibaaro ama hawl wanaagsan uu sii qabto yacni qofkiina uu u sahlanaato ina dadkii la shaqeeyo waxaan rabaa inaan idiin sheego doontaad saaranahay haddii anigana aan u fakaro inaan shaksiyan iyo urur ahaan iyo tacliiq aragtay aan idiin arko inaysan bibsi ahaan doonin mustaqbalka dhow adigoon adu aragto inaysan bibsi ahaan doonin laakiin waxaa muhiim ahaan doona inaan tus ku nimacno haddantana fawda shaqeen waxaan ka fikirayaa laba midkood keli bise wadar iyo wadarteedii aan ka fikirayna inaan wadar wada ahaano oo inaga oo dhammaystiran aan dee waxaan ku qasbannahay laba midkood martin luther hadalladiisii waa cajiib badnaa waxaa ka mid ah haddaa kii madowma u sheegay ama waxaan wada noqonaynaa walaalo wada nool oo ciyaalkooga iyo mustaqbal yeeshaan oo halkan deganaan ama doqmo isla dabargo'ahoo ciyaalkuna ka baaba'an bay noqonayn marka kulley waxaan isleehay halkaas wixii qofka kala sameeyan kana uu soo gaadhay wataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaas way qurux badan tahay laakiin anigu xoog waxaan saari lahaa innaga danta guud ee beergan inaga haysata inaynu xoogga saarno qolo walbana waxbay leedahay
masaajidada de waxay leeyihiin waa culamada yooyo waxay leeyihiin wixii diinta ku saabsanaa iyo de ardaydii iyo wixii ay soo saarayeen ururada kalena inay iyaga naftooda isu soo dhawaadaan oo midoobaan oo laakiinse laysla ogyahay urur walba shaqada lagu ogaado aniga saasaan qabaa sababtoo ilaahay subxaana watacaala isagaana abuurta haddana qur-aanka wuu noo soo rogi wactasimu bixabdillaahi jamiican alaboy ayaa qur-aanku yidhi sooma ilahay noo sheegay mar walba horta jamacaa wanaagsan laakiin aniga haddaan ducaana meel u cararo oo hebel meel cararo qof kale meel u cararo horta waxba ma keenayno laakiin se ayna intaynu isu wada nimaadno aynu idhaahno maxaa innaga waxaynu ka fikeraynaa innaga wax yar baa inaga quseynaya laakiin waa ubadka iyo dadka dambe sida maaragtay ay u noolaan lahayn taasna wadadeedu waa la hayaa laakiin xoogga aynu sii saarno intaasaan kaga bixinaa tiimkiisu aad bay u mahadsan yihiin walaalaha kale dooda ka qayb qaadanayo maaragtay ku dheeraadana aad baan uga mahad celinayaa fikradaha wanaagsan ay soo jeediyeen waxaa lahaa ubadkaaga barbaarinta ugu wanaagsan aad sii kartaa waxay tahay inaad barbaaraysid ubadka deriska caruurtaad dhashaa waxay noqonaysaa maaragtay saaxiibadooda ayaa saameyn ku yeelan lahay marka qof kastoo naga mida inuu ku dadaalo dantaas guuda maaragtay xaafadda iyo ka bilaabato guriga ay ka bilaabato guriga ku degan xaafadaas iyo magaaladii iyo wadankii oo dhan cabdul waxaan ku raacsanahay arrinta ururada qof yaan laga qaadin ururadu inay shaqeeyaan hal lagu xisaabtamo urur kastaba maxaad qabatay maaragtay hal istaageero waxaan doon maslaxa alcaama iyo waxaa jira almanfaca alcaama iyo almaslaxa alkhaasa marka fi soomaaliga haddaad fiiriso maslaxa caam iyo manfaca caam labadooda daniguud ay noqonaysaa laakiin tusaalaha wax lagu gataa tusaalo keliya qiimaha hadda waxaan dhex joogaa iskool waxaan nala jooga maaragtay maamulkii iyo imaamka masaajidka marka masaajidkii iskoolkaa soo qaadana iskoolkoo kale waa maslaxa caam u ah dan guud waaye masaajidka waxaa noqonaya manfaca caam waa anahaas english ahaan ama luqada latin waa interest iyo benefit ay kala tahay masaajidka waxaa noqonaya benefit halkan waxay noqonaysaa interest marka markii la karto shaygan waxa cagsiisa markii la kartaa maxaa la karto tacriiftiisa marka number one aniga waxaan kusoo koobi lahaa tacriifka ugu horeeya cidda ugu horeyso ee dagu weyn leedahay waa in laga shaqeeyo shaygaasoo maslaxadiisa iyo haddii mafaasid ama macnaha dhib uu ka imaan lahaa la reebayo dhibkaas ee wadagaaraysa dadka oo dhan iyadoo aan la kala reebayn oo fahan laga reebaya halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed oo Norway oo aalaad u taagan sidii uu bulshadiisa uga wacyigelin lahaa arrimaha dhibka ku ah si kaalamilana ugu qaban lahaa dooda iyo barnaamijyo wacyigelineed kuwaasoo dhisaya garaadka qofka qoyska iyo qaranka Soomaaliya sidoo kalena cilmi baaris iyo daraasiin ku sameeya dhibaatooyinka ina haysta si xal waara looga gaaro looguna kaydiyo jiilasha dambe si ay uga faa'iidaystaan oo aysan ugu dhicin ama ugu daadan buhraha aan inaga ku daadan ee ku dhacnay ee aan weli ku dhex rafanayno وأنا عبد الله نور حفصينا فبرنامج كان يدينا سعوديين هالكريم وصومالي فيش النرويج أما عقد صومالي النرويج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.